waa tuma gabadha wanaagsan taasoo ay ku riyoodaan caalamka ragga islaamka ah. Qarnigan 21aad ee aan ku noolnahay waa mid ay ku yar yihiin gabdhaha saalixiinta ah ama ku dhaqma waxay diintu farayso. Haddaba gabar yahay noloshaada hagaaji, dhaqankaaga wanaaji si aad u soo jiidato nin wanaagsan kaasoo kaa doonayo mustaqbal, ilaahayna kugu daro irsaaqad nin wanaagsan oo saalix ah. Baryahan dambe waxaad arkaysaa in gabdhaheennii Soomaaliyeed ee sharafta badnaa ay ka tageen dhaqankeennii wanaagsanaa ee lagu yaqaanay, iyagoo soo bandhigaya dhaqamo gaalo iyo inay isqaawiyaan. Taasina ay ku noqotay gabdhaheennii Soomaaliyeed sharaf dhac, jirkoodiina soo bandhigeen. Haddaba nin yahow, haddaad aragto gabar calaamadahan aan kuu sheegi doono leh, guurso oo mustaqbalkaaga ka dhigo. Haddaba maxay yihiin calaamadahan lagu garto gabdhaha saalixiinta ah ee wanaagsan? Aan isku soo laabanno wax yar kadib. waxaa lagu yaqaanaa gabadha wanaagsan inay tahay qof had iyo jeer adeecda Ilaaheed oo haddana saalixad ah. Waxaa lagu yaqaanaa inay tahay tii xafida sharafta qoyskeeda iyo jirkeeda. Gabadhu waa inay ahaataa mid ku dheggan diinteeda, caqiidadeeduna noqotaa tawxiidka iyo manhajkii rasuulka sallallahu calayhi wasallam. Gabadha wanaagsani waa mid akhlaaq badan, xushmaysana dadka waalidiinteeda oo kale ah. Gabadha wanaagsani waa mid xijaabkeeda dhowrata oo aan muujinin jirkeeda, kana soocan gabdhaha gaalada, kuna dhaqmin dhaqamada gaalada. Gabadha wanaagsani waa mid shabahda gabdhihii wanaagsanaa sida saxaabiyaadkii iyo ummahatul mu'miniin. Gabadha wanaagsani waa mid ka dhowrsan wax walba, qaasatan ragga aan marxamkeeda ahayn ama ajaanibta ka ah. Gabadha wanaagsani waa mid ku sifowda xishood, xishoodkuna waa halbowlaha dumarka, waana iimaanka qayb ka mid ah. Gabadha wanaagsani waa mid ku sifaysan baarinimo, waa mid baari u ah labadeeda waalid, sidoo kalena hadday leedahay sowj waa mid asna raaliyo u ah, waana sifaadka lagu garto gabdhaha saalixiinta ah. Gabadha wanaagsani waa mid ixtiraam badan, ixtiraamtana dadka oo dhan, yar iyo weynba. Gabadha wanaagsani waa gabar dabeecad wanaagsan, dhaqan qurxoon, dhaqankeeduna yahay kan islaamka. Gabadha wanaagsani waa mid nolosheeda ku qanacsan wax walbay tahay, maaha mid jirkeeda caddaysa, maahan mid aan ku kalsoonayn midabkii Ilaahay siiyey, waata nolosheeda adduunyo iyo mideeda aakhiraba tahay naajix. Gabadha wanaagsani waa mid dhowrta 5 salaadood waqtigooda, alla ka cabsiguna qalbigeeda ku wan yahay. Haddaba wiilyow, haddaad aragto gabar astaamahan aan soo sheegnay dhowr ka mid leh, u door noloshaada oo ka dhiga xaaskaaga xalaasha ah oo aad la wadaagi lahayd nolosha inta kuu dhiman. Adiguna gabaray noqo gabadhaas saalixadda ah, raggoo idinla ku haminayaan guurkeeda, allana uu raalli kaa yahay. Dumarku waa kuwa israaciya adduunkan dhaldhalaalkiisa, haddaba adduunkan ma ahan mid lagu nagaanayo, waa 2 maalin oo qura. Camalkaaga wanaaji gabar yahay. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. soo gudbiyaha barnaamijkan qiimaha badan waa walaalkiin Saki Cabdi Yaasiin. Adiguna walaal nagu taageer ficilkaaga iyo aragtidaada kala duwan. Channelka subscribe saar si ay kuu soo gaaraan muuqaalada soo socdo.